waxaan rabnaa maanta Soomaaliya waxay taagan tahay markii laga bixi lahaa cadaalad iyo sharciga sareeyo iyo cadaaladan rabnaa oo afka baarkiisa ah markii laga bixi lahaa ay taagan tahay maanta waxay taagan tahay markii sharciga la dabaqi lahaa qof la xiray oo la dacweeyay oo la eedeeyay iyo sharciga dhexdiisa marka laga bixi lahaa ayay taagan tahay waa lagu dhex jiraa qofka xiran iyo sharciga dhexdiisa hadda lagu dhex jiraa saasna sax maaha waxaa la rabaa qofka sharciga inuu eedeeyo oo lagu eedeeyo sharcina lagu difaaca la rabaa marka la difaacayo waxaa ku dhex jira marka oday dhaqameeda ku dhex jiro waxaa kaloo ku dhex jiro siyaasiya ku dhex jiro siyaasiyiinta qaaraa ku dhex jiraan oo siyaasiyiinta kulli hataa ma dhahayno oday dhaqameedka marka la aado oday dhaqameedka waa mahadsan yihiin dalkan oo qabaa'il u kala xiran oo la hubaysan yahay oo la isdilaayo ayay wax badan soo dhaafiyeen ay ka samadooneen ay wax badan wanaagsan oo badan ay kasoo talsheen hadda dawlad timid wadadii ahayd oday dhaqameedka inuu xalliyo waxa waa laga gudbay wadadaasi waxay noqotay wado hore ka xiran oo aan ceelna geenin wado ma dhaleysay noqotay in qof dilay oo gacan ku dhiigla ah laga ergeeyo la yiraahdo cid uu ka dilay inta loo tago oo hadda ka hor idinka wax naga disheen ee kan hadda aan ka dilna kii aan naga disheen u qaata hadda dhano inta naga dili doontaan kan hadda wax dilo u qaata intaas la yiraahdo wadadaas wado ma dhaleysa oo xiran oo aan ceel geenin noqotay naga dhaafa naga daayay arinta siyaasiga marka siyaasaddu waxaa loogu talagalay inay danguud ka shaqeyso siyaasiga aan danguud ka shaqeynaynin mushkiladu qayb ka yahay horumarku kud ku yahay hasha waxaa la yiraahdaa hasha kudna waa dilay waxna waa u heliyana la yiraahdaa Soomaaliya mushkilaadka iyo dhibaatooyinka ka jiro waa badan yihiin ama argagixiso dheh ama gacan shisheeye dheh ama waxaas dheh ama wax kasta la dhaho markii boqolay loo sameeyo siyaasiga aan danta guud ka shaqeeyeen dhibaatada uu Soomaaliya ku haayo oo hashii mandeeq ku luntay ayaa ka badan dhammaan waxa kale ayaa ka badan saas darteed waxaan rabnaa siyaasiyiintu inay wada ay qaadaan wada aan tii hore ahayn wadadii hore haddii aan marno oo wadadii hore aan ku soconno natiijada hore helayna natiijadaas waana bixi weysay waana anfici weysay wadada waa inaan bedelnaa sida natiijada hore ka duwan oo ka wanaagsan aan u helno taasaan leenahay siyaasiyiinta arinta marka cadaaladda anaga marka maxkamadda anaga marka aan leenahay waxaan ka wadnaa garsoorka Soomaaliya dadka ka shaqeeya gaar ahaan garsoorka anaga aan ka shaqeeyno dadka ka saraakiisha ka shaqeeyo iyo howlwadeenada ka shaqeeyo anagu og in Soomaaliya cadaaladeeda laga shaqeeyo inay la macno tahay in dab dhuxul ah gacanta aad ku qabsatay inay la macno tahay ayaan dooranay oo aan u bareernay shaqadan inaan qabanno waxaan u cadeynaa dadka Soomaaliyeed inaan wadi doono waxaan ku faraxsanahay oo ku faanaa meesha aan maanta soo gaarsiinay shaqada aan shacabka Soomaaliyeed hortiisa ugu faanaa anigoo waliba ku dhiiran waxaana wali si sheegaa inay arintu wali dhiman tahay darbi weyn oo dulmiga u dhisnaay ayaan dhagax ku dhufanay dhagaxaasi ma jibin darbigii wuu garaafeeyo wuu dhaawacay in darbiga dulmiga ah la dayactiro iyo in maxaa la yiraahdaa la wada dumiyo bulshada Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed ka falanta Soomaaliya ha noolaato cadaaladdu ha sareyso xaqiiqduna xaqiiq ha ahaato aad u mahadsan